waxa ugu qurux badan ay indhahaada qabtaan maalin kasta oo markay quruxda dhacayso iyo markay soo baxayso ma jiro ilaa hadda caalamka shay la dhaho quruxda shaygan ayaa ugu qurux badan ma jiro laakiin markii la fiiriyo maalin kasta dunida waxa la qabtaa dadka ugu quruxda badan muuqaalkan sababta aan suubin yahay weeye maalin dhow ayaan daawanay muuqaal lagu suubiyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaasoo lagu qabtay gabdhaha ugu qurux badan taasi ma ahan qurux laakiin waa jirka ka ganacsi caadi ah maxaa yeelay maanta dhown gabar ayaa naashiya midaasoo ah gabar xurumo leh sharaf leh la sheegayaa inay ta qurux badan tahay ta kalena ka qurux badan tahay laakiin taasi waa been wax jirana ma ahan waa madadaalo la isku madadaalin iyo waqtina la iska luminayo waxa laga soo guriyay reer galbeedkaas diinta aan haysan dantooduna ay tahay lacagtaas iyo waxyaalo aan faa'iido lahayn anaka oo muslimiin ah inaan soo qaadano waxay suubiyaan gaaladaas waxay suubiyaan oo aan ku darsanay cilmigeena wax aad iyo aad u farxo badan way gabdhaheenu waxay ku qurux badan yihiin guriga markii gabadheena ay ka soo baxday guriga waxa bilaabanay dhibaato kaste oo bulshada fiir bal gabdhaha maalin kasta baraha bulshada la soo dhigayo ayagoo jirkooda uu qaaban yahay Allah quraankiisu wuxuu ku leeyahay waxaan karaameynay bilaadanka laakiin hadda anaka karaamada iska qaadayna hadii aan bilowno waxaan ficilada aad ka xun wax faa'iidana ku soo kordhineen hadii aan soo keeno dhalinyaro kuwaas oo gabdho kuwaas oo ku fiican gurigeena joogan adahno caasho iyo cabdiyo ayaa tartamiyaan qurux ay ku tartamiyaan waxa aad u farxoon badan waxna noo soo kordhineen dhaqankeena diinteena dalkeena burburinaya waxaan dheeraanaa meelaha lagu qabanayo waa meelaha iska leeyihiin dad mas'uuliyiin ah laakiin ma xasuusanayaan waxna kama oga waxna faa'iido ahna kuma soo kordhinayso laakiin ayaga dantoodu waxa weeye lacagtaas inay ka helaan muuqaalkeena maanta intaas ayaan uga hadlayay intaas ayuu ku ekaa doonaa insha Allah fadlan haddaad kanaalka cusub tahay subscribe saar muuqaalo noocan oo ka gaaban ayaan ku soo gudbi doonaa insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh